alxamdulilah mar walbo allah subxaana watacaala ayaa mahadda iskale soo dhawaada saakin waxaan ila wadaagayaa jadwalkayga subaxdii amaba my morning routine bismillaahi alfataaxi alcaliim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alkariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaaliyaati soo dhawaada kusoo dhawaada qalbi furan haddii aan ugu cusubtahay soo dhawow channelkan waxaa lagu soo gudbiyaa nimcooyinka allah subxaana watacaala arlada soo dhigay isqurxinta dabiiciga rootiino iyo waxyaabo kale oo badan oo faa-iido leh haddii aa intaba daneynaysid ama wax kamid ah xiiseynaysid nagu soo biir oo kamid noqo kumanaanka qof ee nagu xiran dhammaantiinana waa mahadsantiin inaa idiin dhahone marnaba kama daalay kamana caajisa man laa yashkurinaas laa yashkurillah ujeediin jabiga aada u mugdi u yahay waana 1 saac oo 10 dhiman hadeertaan waa soo cadeysanayaa alxamdulilah waa soo cadeystay waa soo weyseystay salaada subax ayaa dukanayaa alxamdulilah markii aad tugtay ilaah subxaana watacaala naga aqbalo hadda waa iska wardinayaa subaxdii inay maalintaada ku qurux badnaato haddii aad rabtid adkaaru sabaax akhriso sidoo kaleeto sali marka aad ku tukatid cabaar wardi quraan iska akhriso alxamdulilah markii aan wardigii dhameeyey dane quraanka ayaan akhrisanayaa subax walbo waxaa fiican inaad akhrisatid suuratulbaqara qofkii guriga ku aqriyo shaydaan dhan ma arkayo iyo shar insha allah adigoo yaqiin qabtid sidoo kale guriga xitaa ku shid subaxdii markaa soo kacdid suuratulbaqara adigana aqriso markaa salaada subax aad tukatidbo alxamdulilah markii aan soo aqriya soo dhameeya hadda waxaa waay skiinkeerkeyga maanta 3 shay kaliya isticmaalaya waxaan isticmaalaya waa isbareyga oo biyaha uwaxa iyo garsaliinka aan ka sameeyey iyo sidoo kale kareemkan ayaa isticmaala kareemkan aloe vera ayuu ka sameysan yahay aada u fiican yahay haddii aad rabtiin waxaa ka heli kartiin carrot fat iyo itos labada meelba uu yaalaa jirka iyo wejigana marsan kartaa iyo faasiliintaas ayaa faruurta marsanaya alxamdulilah skiinkeerkeyga markaa soo dhameeyana quraac yaraa sameysanaya maanta boorashkan isticmaala boorashkan waa 2 minute sidoo kaleeto waa karin kartaa sidoo kale microwave-ka gelin kartaa ama caana ku qasi kartaa sidiisa ku cuni kartaa intaa meel dhigtid markii uu jilco saas warqadahaas ku jiraan baakada hal warqad ayaa kugu filan haddee kugu filanayna 2 ka dhiga kartaa laakiin hal xabo ayaa isticmaalaa ujeedin warqadana sidaasay u eg tahay caanahana nooca rabtida isticmaali kartaa sidoo kale biyona waa isticmaali kartaa laakiin ani caana isticmaalooyaa hadda waxaa soo qaadanaya weelkii aan ku gelin lahay microwave-ka weel oo microwave-ka galaya haddaa microwave-ku isticmaalaysid waaye laakiin haddaa karinaysid waxaa waay digsiyaaba iska isticmaali kartaa hadda boorashkiyaa kusoo shubay sidaa ujeediin boorashka markaa kusoo shubay kadib waxaa ku darayaa hadda caanahane dadka caanaha lo-da iyo waxaas caabin haddaad tahay waxaa isticmaali kartaa caanaha qumbaha caanaha looska caanaha soya soos la dhahayo ayaa isticmaali kartaa maasha allah microwave-ka ayaa geliyay 2 daqiiqo kadib ayaa kasoo saaraya hadda waxaa soo isticmaalaya waa biidkaaseti waa soo bixiyay sidoo kuleel u yahay ujeediin maasha allah waana diyaar xoogaa markuu qaboobo ayaan isku soo laabaneynaa maasha allah waa isku soo laabanay qandac yar waaye hadda kadib waxaa sameynaya kor waxyaabihii aan isticmaali lahaa ayaan ka saarayaa marka hore waxaa ku shubanayaa malab haddaa rabin markii aad caanaha ku shubeysid sokor ayaa ku darsan kartaa haddaa macaan rabinne sokor la-aantiisa ayaa cuni kartaa adiga iyo dooqaaga waaye malabka ayaa sidaas ugu soo bilbilayaa malabka aada macaan ma oga dhigayo saasuu ku fiican yahay laakiin sokorta macaanay ka dhigaysaa malabkana faa-iidooyin badan uu leeyahay hadda waxaa waaye biirkii ama beerkii aa soo jarjaray aniga moos ma cuni sidaas darteed bedelka mooska ayaa asiga isticmaalaya haddaa rabtid moosaa saaran kartaa tufaaxa saaran kartaa strawberry fruit alla fruitkii markaas adiga aa jeceshahay ayaa saaran kartaa maasha allah saas ayaa ugu soo jarjartay waxaan kasoo dhigay 1 xabo waaye saasa usoo jarjaray feeto wareeg gobol adiga iyo dooqaaga sidaa rabtid waa ujeediin maasha allah yaa quraac dhammaystiran vitaminkeeda iyo borotiinkeeda wadato waaye
mar walbo quraacyo kala duwan qofka inuu cuno vitamino leh fiican. Hadda waxaa ku daraya waa qaado weyn oo chia seed ama chia seed qof walba siduu u yaqaano. hal qaado weyn oo ku bilbilay badanaa hal qaado oo biyo ku cabaa subaxdii, laakiin maanta maadaama boorashka ku qasay boorashka igu filan. laakiin markaa cuntid waxaa la rabaa in aad biyo fiican cabtid sida markaas uu u dhalaalo oo jirkaaga faa'iidooyin siiyo. kadibna sabiib ayaa isticmaalay, sabiibka nooca madow isticmaaloya ayaa saaranaya. maasha allah tabaarakallah alxamdulilah allahuma baarig. ugu dambeyntii sidaanu kusoo baxay. sidoo kale bedelka sabiibkana timira isticmaali kartaa. hadda waxaawaa jebi yaraan soo diyaarsaday maasha allah shumac. jebiga maadaama aada mugdi uu ahaay, galaaskayga cabitaankan wuxuu ka sameysan yahay tufaax iyo beetroot iyo beerigiisu ka sameysan yahay. maasha allah dukaankaa kasoo gadaa soo diyaarsan. waa kana quraacdeyda. bismillaah. haddana waxaa waaye waa cunayaa ya sida la cunaya xataa waa niltusoya maanta khatar la iska dhigoya. igu qaata asxaabta qaaliga maasha allah tabaarakallah. ilaahay subxaana watacaala hanoo daaweeye hanoo barakeeyo. intaa haysanin ilaahay subxaana watacaala ha siiyo aamiin yaa rab. waa kaas chia seedka inaad si fiican ugu qastid waaye. sida markaas jiyaha hadduu qoyaan gaaro waxaa waaye uu jilcaya, marka qoyaanka saas u saar adiga le waaye. insha allah marka quraacda soo dhameeyo ayaa noo balan asxaabta qaaliga alxamdulilah. hadeertaan waa soo dhameeyey sidaa ujeedinaya. baakadaaseti way yartahay laakiin kor markii laga arka inay weyntaa loo maleynaya. waxaana fiicanba wax markaa cunaysid wax kugu filan oo aad dhamey kartid. in saxanka wax lagu reereebo ma fiicno. waa kaas hadeertaan cabitaankeyga aan cabayaa. kadibna alaabta ayaa iska qaadaya jikada geenaya. hadeertaan winter ayaa bilowday, qaboobaha markuu bilowdo muhiim waa qofka vitaminaad inuu qaato. aniga hadda vitaminkana soo gato waa vitamin D sababtoo qoraxda ciyoobna way dhaceysaa, ciyowna ma soo baxeyso. sidaas darteed qoraxda qofka biniaadanka aada ugu baahan yahay. vitamin D3gan oo xanjo camal waaye waa calaanjine ayaa barooweynaya wax ma ku jiro oo yacni xaywaan waa ujeediin saasuu u eg yahay. dhexdiisa caraf maasha allah tabaarakallah. maanta igu horeyso aan bilaaboyo vitaminada qaboobaha u muhiimka iyo macdanadana insha allah idiin soo gelinaya iyo cuntooyinka laga heli karo. waa ku mahadsantihiin daawashada videoganeeti. haddii intaan nala joogtay jazaakallah kheyr ayaa ku leeyahay. sidaas uu eg yahay. dukaanka aa kasoo gadana waa etoska ayaa kasoo gaday. sidaas oo la socda dadka Netherland joogo. waxaa laga yaabaa vitamin D kuma la dhahaa ama xanjo camal u calaanjine. biyo inaa ku cabtid uma baanid. hal xabo maalintii cuneysaa. waxaana ku jirto 60 xabo. inta aan video lamid ku kulmeyno videoga like noo saara, sii share garee, la wadaaga ehelkiina asxaabtiina sida dad badan uu u gaaro channelka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaana allah.